Assalaamu calaykum. Qaab dhismeedka iyo shaqada kelyaha. Kelyuhu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta caafimaadkeena iyo fiyoobiqabkeena, iyadoo inta badan ay hareeyeen xubno qurux badan oo si cajaa'ib badan Ilaahay u qaabiyey, kuwaas oo qabta howlo badan oo nolosha lagama maarmaan u ah. Ayna u gudagalno qaab dhismeedka iyo shaqada kelyaha. Qaab dhismeedka kelyaha. Kelyaha waa laba xubnood oo ku yaalo dhabarka dambe ee caloosha. Waxay wax yar ka hooseeyaan qafiska feeraha, mid kasta waxay ku taallaa labada gees ee lafdhabarta, iyagoo ilaalinaya lakabyo muruq iyo dufan ah. Waxayna si degan u gutaan howlahooda muhiimka ah iyagoo aan la dareemin ilaa ay wax qaldamaan. Marka si dhow loo eego, kelyaha waxay muujinayaan qaab dhismeed gudaha ah oo ka kooban malaayiin unugyo yaryar ah oo loo yaqaano nephroniska. Unugyada shaandhaynta ee yaryar waa kuwa ugu muhiimsan ee kelyaha, oo mas'uul ka ah shaandhaynta qashinka iyo dareeraha xad-dhaafka ah ee ku jira dhiigga si ay u soo saaraan kaadida. Shaqada kelyaha. Kelyuhu waxay abaabushaa howlo shaqo si ay u ilaaliyaan dheelitirka dareeraha, electrolyteska iyo pH-ka. Aynu si qoto dheer u eegno qaar ka mid ah doorkooda muhiimka ah. 1. Sifeynta. Shaqada koowaad ee kelyuhu waa shaandhaynta dhiigga oo ka saaraya wasakhda sida urea, creatinine iyo ioniska xad-dhaafka ah, iyada oo ka ilaalinaysa walxaha muhiimka sida glucose-ka ama sokorta iyo borotiinada. Habkani wuxuu ka dhacaa nephroniska, halkaas oo dhiigga lagu sifeynayo iyada oo loo marayo shabakad ka kooban xididdo yaryar iyo qaabab gaar ah. 2. Dib u nuugista. Sifeynta kadib, kelyuhu waxay dib u nuugaan walxaha qiimaha leh sida biyaha, electrolyteska iyo glucose-ka oo dib ugu soo celiso dhiigga, iyaga oo hubinayo in nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah aysan ku lumin kaadida. Habka dib u nuugista wuxuu ka dhacaa tubooyinka nephroniska, halkaas oo unugyo khaas ah ay si wanaagsan ugu rarayaan moleculeska guud ahaan gidaarada tubada kelyaha. 3. Dheecaanka. Ka sokow shaandhaynta iyo dib u nuugista, walxaha kelyuhu waxay sidoo kale door ka ciyaaraan in ay soo daayaan qashinka iyo walxaha qaarkood kaadida. Tani waxay kaa caawinaysaa habeynta dheelitirka aashitada jirka ku jirto iyo heerarka electrolyte-ka iyo cadaadiska dhiigga. 4. Soo saarista hormoonnada. Kelyuhu waxay soo saaraan dhowr hormoon oo muhiim ah, kuwaas oo nidaaminaya howlaha kala duwan ee jirka. Mid ka mid ah hormoonnada noocaasi waa erythropoietin, kaas oo kicinaya soo saarista unugyada dhiigga cas ee dhuuxa lafaha. Mid kale waa renin, taas oo ka caawisa habeynta cadaadiska dhiigga iyada oo la xakameynayo dheelitirka milixda iyo biyaha ee jirka. Shaqada ugu dambeysa. Ilaalinta dheelitirka. Kelyuhu waa wax cajiib ah oo awood u leh in ay ilaaliyaan jirka. Waxay si joogto ah ula socdaan arrimaha sida cadaadiska dhiigga, mugga dhiigga iyo hal-abuurka dhiigga, iyaga oo hagaajinaya shaqadooda si waafaqsan si loo hubiyo dheelitirka ugu fiican. Halkaas ayuu ku egyahay. Waxaa inoo balana ciwaanka xiga hadduu Alle idmo. Khayr badan.